الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما وصلنا أمة الصومالية ميلك سيجوكتو ولاشين رضوان بعد الله الله يسا ساعة تاريخ وتضوي طبعا كي بشي كوفيد 2017 هل كان ساعة وحيسوي يميت ضد بدن الصوماليات وهو ينو بدن إيو ورجيس كحافظة كوميونيتي ووكر يوث ووكر يبوليس كحافظة يسوي يميت وسيد أكتهم به dhibaato badan ayaa dhalinteena ku dhacaysa hore u soo maqasheen runtii wax badan ayaa laga hadlay maanta oo aad u fara badan oo la isweydaarsaday dawladii iyo dadkii ku dhex noolaa dawladda erayadii anu waan soo habsaamay maanta erayadii ku dhex jiray ee la kulmay waxa kamid ahaa xaafadda Ealing waxay dhaheen waxa ku nool 340,000 oo qof waxay yiraahdeen 340,000 ee qof way saamaysay dhibaatada dhacaysa ee dhalintiina ku dhacaysa ee dhimashada leh ee toogashada leh ee dilka iyo toorida leh waxay dhaheen ogaada inay dhibaato badan anaka baan hayso oo cabsanayno oo cid walba argagaxsan tihiin ogaada bay dhaheen caruurtan wax baranaysa ee iskuulka joogta inay iyaguna cabsi ku nool yihiin inay waxbarashadu hoos u dhici karto neighborka dadka waaweyn ee waalidiinta inay cabsanayaan inay dhammaan dadkiiba isla oogmeen oo highest attention ku dhacay oo ilaa xad dadka walwalsan yihiin baraas inoo dadkii carruurtii ka dhalanay waalidiintii si kastaba ha noqotay walaalaha qaaliga walaalayaal ummadda Soomaaliyeed waxa calaacal wax bayna ma taray waxa loo baahan yahay ficil wax badan baa la sheegay wixii la sheegay waxa laga yaabaa in halkan xafiiska laga tago waxaas ma shaqeeyo dhammaan waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qurbo joogto dadka la degan London oo gaanka ku soo batay inaynu wada shaqeyno hooyinka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa intaan carruur laga hadal iyo ragaba dhexdeena waalidiintu inay wada hadlaan المها اللي فهمه تربية الأولاد وحكست على هذا المها لما فهمي الدور لما أنا فهمي ولقي إلا والدك يسفهمه إلا والدك يسكو حربه والدكم يسفهن سنيه وسؤالي لابو شاركو يسفهن سنيه هاي صدح ضمرهان ما يسفهن سنه هاي صدح لا سن هني المهي سيد لو فهميه المهي دبعته هاي ستا المه والدك ما فهمان ماشي يكون ولين دب كنا كهايستا اسكولك وحبا كتبانيان عرورتي ayaa inaga sii dhib badan hase ahaatee walaalayaal dhibku weyn wada saameeyay waliba ridwaanay waxaad ku dartaa in aan haysano dad badan oo jira inay caawiyaan u baahan walaalayaal habeenii maalin bay wallahi habeenii maalin bay dawladdu hadlaysaa ma caawininku wuxuu 10 qof gaarsiiya oo fareenkiina waxaan ku ori 10 kun baan gaarsiin karaa kaligiin li'annahu kilib tayar bay iga xigtay inay millions people dhageystaan walaalayaal waxaan idin oran lahaa oo idinku boorinayaa oo markasta idin sheegaya aynu shaqeyno way inoo laacday inaynu hurdo seexano waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ma aragtay walaalaha Soomaaliyeed ee ragga walaalayaal garab idinkama maarano ragga yagii baan fahmi laanahay hadaan carruurtana fahmayna waa maya si kastaba ha noqotay anaku aad ma wadno walaalayaal meel kasta hooyaa joogta xafiis kasta hooyaa joogta meel kasta oo laga hadlayo carruurtu ma roob la dhac ma wax irka ka yimid ba walaalayaal baashi biyaha habeenkii soo raacday ayaa roob la dhac la yiraahdo roob la dhac oo banaanka lagu arkaa carruurtani ma roob la dhacba ma alien cirka ka soo dhacayba miyayna dad dhalin miyayna dad lahayn hadal iyo dhammaan uma baahnin inaynu seexano carruurteena iyo banaanka joogta hadduu wiilkaaga iyo hadduuna ahayn uma baahnin inaynu guryaha walaalayaal ku jirno aynu isgarabsanno aynu iswaanino aynu in badan ka shiro arrintan kow iyo laba ma arrintani dhammaan waxay u taalaa community-da oo dhan gaar ahaan dadkeena u taala aad bad maadsantiin waxaad u raacisaa waxa kalmad ku darsanaysa Saynab Xaaji Saciid inta kugu darsan oo Saynab u gudmi waxaad raacisaa Ridwaanay dadka community-ga xaafadda Ealing ku dhaqan maadaama oo naloo sheegay in hadda dhibaatada ugu badan ay Ealing ka dhacday waxaad u sheegtaa lambarada ay la soo xiriiri karaan iyo caawinta inanka uu diyaarka inuu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee xaafadahan Ealing ku nool wallahi hadda numberkii dhakada kama hayo laakiin meelo badan bay iman karaan يوسكو دالنيرتي إنك وش لا شقية أنا كانوا وين لا صح ما كسر ولا صحيح كلام قفكي ولا الدونية قفكي دونية إنه ما ركتي لا حريرو ضدك ماله ولا المعاني ماله كل حريرو مو نواين ماله كل حريرو مركب ولا لقى على سو قفك دورها إنه وحن فهمه بقى أرتب حابة كهرة قفك مفهنسين ديبك هالكم مري ويدهن يجح حتى وين وشاقين مفهنسين تهم بيدهن dhibaatadu halka ay garaacayso ninka wuxuu yiri oo kale haduu ay cad jirto ama dhibaata jirto qofkaas wuxuu liir gareyn karaa ku dhici karaa dil
marka waxay dheen ogaada indhaha ku haya ilmihiina keebaa cadhaysan keebaa muuriya yacni wax badan baa maanta lasoo sheegay walaashan sayid baa sidoo kale sidaan uga hortegi karnaa matalan carruurtii dadku waxaa inta badan dhacdo in la eedeeyo carruurta keliya markay dhibaatada geystaan lagu yidhaha asagaa sameeyey asagaa dhahay maxaa canuga teen ageka oo ka hortaga oo loo sheegi karaa wallaahi walaal dadkeena anu waxaan odhan karaa waa ilmo meyd canaanta dadkeenu canaantoodu waxay gaadhay meelo badan runtii canaan wax ma tarayso dad waynu walaal macaanay halkan runtii dad dhaga adag baynu isma dhegaysano dhasheennii baa badan dhasheennii oo badan innakii oo dhaga adag innakii oon soo dhawaanaynin waxyaalo badan baa iska jira runtii kilibtana kuma soo koobi karayo walaashay baan siinaya codka haye soo dhawo walaalo waxa uu intaasi ku daray oo aad iiga argagixisay wuxuu yidhi waxa suurtagal ah in ay December dhacdo arrintan oo kale dilkan oo kale waanu sugaynaa December maadaama 5 bilood gudaheed 4 qofood oo Soomaali ah waxa la dilay wuxuu yiri Decemberna way soo socotaa buu dhahay dhibkan iyo dilkan waanu sugaynaa buu dil hor leh waayo buu yiri dadku waxay abuurmay buu gaan iyo is urursi fara badan waanu sugaynaa dhibka Ilaahay dib nooma keeno waxaan u baahanahay inaynu ka hortag fara badan sameeyno waxa la dilay wiil yar Baakroil ciidi lagu dilay waa la garanayaa Backtoy baa lagu dilay kow inankii kale waxaa lagu dilay Western Avenue Greenford inankan yar kale hadda waxaa lagu dilay meedkiisu yaallo Lady Margaret 5 bilood gudahood community laga dilay ma jirto intaasoo ilmoodna way dhaawacaan yihiin dhaqtaradii ku jiraan صح waliba carruurta waxa attack kale ku haysa Ilaahayna inuu barino fafir